Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo muuqaal kale oo ka mid ah barnaamijkeena Isbaro Isla Noolow. Muuqaalka maanta waxaynu kaga hadli doonaa meelaha furaha waa isbarashada. Waa iska warqabka qofku inuu qof is yaqaana oo is og noqdo. Sidoo ku noqon karaa halkeebaa muhiim ah qofku inuu halkeebuu iska baran karaa ayaynu maanta ka hadlaynaa. Waxaa laga yaabaa marar badan inaad maqashay iyadoo lagu leeyahay isbaro, laakiin inuu suurtagelin sidee iyo halkee sideen isku baran karaa marnaba ayaan jawaabtaas helin. Qalkan maanta waxaynu kaga hadli doonaa qaabka aad isku baranaysid iyo meelaha muhiimka ay tahay inaad barato. Waxaanu ku bilaabaynaa kow ilaa waxaanu sheegi doonaa 5 meelood oo muhiim ah. Ta koobaad, marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sifada shakhsiyadaada, personality trait, sifada shakhsiyadaada. Sifada shakhsiyadaada waa fahamka sifaadka adiga ka dhigaya adiga. Waxa adiga ka dhigay inaad fahantid baa kow ah. Sidoo kale inaynu baranaa sifada shakhsiyadeenu waxay inoo saamaxaysaa in aynu waxyaalaha marxaladaha iyo shay'ada inoo korinaya inoo horumarinaya aynu ogaano. Sidoo kale inaynu ogaano waxyaalaha ina deeqad iyo walwal geliya isla markaana ina dhaxalsiiyo gooldaro. Sifaadka aadamuhu aad bay u badan yihiin, balse waa la isku soo ururiyaa ilaa la soo gaarsiiyay 5 sifo oo la isku yiraahdo 5 waaweyn ama the big 5. 5 waaweyn 5 habeen si kooban u dulmari doonaa, kadibna waxaynu u gudbaynaa qodobada kale iyagana muhiimka ah. Number 1, sifada koowaad waxaa la yiraahdaa openness ama open to experience, oo ah furfurnaan, maskax furnaan. Dadka inta badan sifadan ku sifoobay waa dad iyagu furfuran, jecel barashada waxyaalaha cusub iyo daahfurka waxyaalaha cusub, mar walba raba inay ogaadaan wax cusub. Waa dad imaginationka, takhayulka ama awoodda sawir maskaxeed samaysashadoodu ay aad u sareyso oo laga yaabo waxa ay ka fikirayaan dadka caadiga inaan ay ka fikirinba. Dadka sifadani ay ku yar tahay iyaguna waa dad la yiraahdo close minded. Waa dad iyagu inta badan jecel ku noolaanshaha goobada caadinimada inay inta yar ku jiraan, wax yar ay yaqaanaan iyo inta og yihiin ay ku kalsoon yihiin hubaan kaliya noloshooda ku maareeya. Sifada labaad iyaduna aynu rabno inaynu halkan ku wadaagno waxa weeye conscientiousness. Inta badan dadka sifadan iyaguna ku sifoobay waa dadka Soomaali ahaan aynu ugu yeerno xilkaska. Waa dad xilkasa, waa dad habaysan oo maalintoodii hawlahooda aan isdhex yaacsanayn laakiin qorshaysan. Waa dad ku shaqeeya oo u jajaban qorshe ku shaqeynta, plan oriented people weeye. Waa dad go'aan adag oo aan si fudud loo bedeli karin. Halka kuwa sifadaas ay ku yar tahay iyagu noqonayaan dadka carelesska, inta badan hawlahoodii danahooda muhiimka si fudud looga jeedin karo, aan maalmahoodii wax walba ay isku dhexdaadsan yihiin ay wax u habaysan, mar walba wixii ku soo baxa uun raaca. Sifada saddexaad ayadana waxaa la yiraahdaa extraversion. Waa dadka ku sifoobay, waa dadka Soomaali ahaan aynu ugu yeerno bulshaawiyiinta. Waa dad bulshaawiyiina, waa dad tamar badan, sidoo kale mar walba rajeynaya wax wanaagsan inay dhacaan, inay wax wanaagsan yimaadaan, inay wax wanaagsan helaan. Waa dad saaxiibtinimo leh, hadal cadcad oo maquustayaal. Halka kuwa sifadaasi ay ku yar tahay kuwa lidigooda iyagana la yiraahdo introversion, oo ah dad iyagu madax bannaan oo inta badan xirxiran oo la dhaqanka iyo kumilanka bulshada inta badan aan jeclayn oo inta badan dadka kale gooni ka yara. Sifada afraadna waxaa la yiraahdaa agreeableness. Qofku waa dad inta badan iyagu sifada dadka ku sifoobay waa dad caawimaad badan oo inta badan dadka caawiya, waa dad kalsooni iyo aaminaad leh, waa dad beer jilicsan oo akhlaaq badan. Halka kuwa sifadaas ay ku yar tahay ama lidigooduna ay yihiin antagonistic people, iyagu inta badan dad akhlaaq wanaagsanayn, aan waxba danaynin, aan dadka marnaba u danqanin oo nixin. Sifada shanaad ee ugu dambeysana waxaa la yiraahdaa neuroticism. Inta badan iyagu waa dad aan emotionally deganin, waa dad si fudud looga xanaajin karo, wax fudud uu ka xanaajin karo, dad inta badan walwala oo walwal badan oo cabsi badan, wax kastoo imaanaya ka sii cabsanaya, waa dad cabsi badan. Halka kuwa sifadaas ay ku yar tahayna stable people ay yihiin, waa dad iyagu degan oo hagaagsan oo aan sal fudayn marnaba. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid sideen ku ogaan karaa sida sifooyinkan iyagu kala badan yihiin. Qof kastaba waa leeyahay 5 sifo, laakiin way kala darajo sareeyaan, waa kala badan yihiin. Dhammaadka muuqaalkan waxaad ka arki doontaa application yar, waxaad kala soo degaysaa Play Store-kaaga, qaabka aad u isticmaalaysana halkaas aad ka arki doontaa. Dhammaadka fiidiyogan ayaan isagana idin kula wadaagaynaa. Qodobka labaad ee isaguna muhiimka ay tahay inaad ogaato saad u noqoto qof iska warqaba, is og oo is yaqaana waxa weeye waxyaalaha ku mudan ee ku muhiimka values-ka weeye. Waxa ku mudan ee ku muhiimka inaad taqaano.
haddii aadan garanayn waxa kuu muhiimka tamartaadii, dadaalkaagii, kartidii, caqligii iyo dhaqaalihii iyo dhallinyarnimadiiba waxay kaaga lumayaan waxaadan hadhow toola mahadin oonan kuu muhiim ahayn. marka waxaa laga yaabaa mid inaga mida in barashada wax cusub iyo aqoon waayo aragnimo inuu kasbadaay inay u tahay waxa ugu muhiimka u mudan, isla markaana resourceskii iyo wax walba uu haystay uu u hurayo, u qoondeeyo, uu gelinayo kasbashada aqoon. waxaa laga yaabaa mid inaga mid oo kale in halabuurka ganacsi guulaystaa uu yahay waxa ugu mudan, isaguna wax walba uu haystay oo ay ka mid tahay kartidiisii iyo aqligii iyo dhaqaalihiisiiba uu gelinayo, uu u qoondeynayo oo ugu talagalay siduu uga gun gaadho isla shaygaas oo ah halabuurka ganacsiga. waxaa laga yaabaa mid kale oo inaga mida in noqoshada hogaamiye lama jeerto oo la mahadiyaa inay tahay waxa ugu mudan ee uu raadinayo, isla markaana wax walba uu haystay uu u hurayo ka gungaadhidda iyo noqoshada hogaamiye dunida ay majeerto la xasuusto. qodobka saddexaad isaguna kusoo xiga waxa weeye waxaad u baahan tahay inaad ogaatid habitiska caadooyinkaaga, waxyaalahaad sida maalinlaha u qabatid, waxaad maalin walba qabatid. markaad u fiirsatid maalintaada ee aad eegtid subax walba markaad toostid ilaa habeenka inta u dhaxaysa waxyaalahaad qabato laban bay kala baxayaan. caadooyinkaas qaar waxay noqon doonaan kuwo ku caawinaya oo horumarkaaga iyo horsocodkaaga iyo tayadaada kordhinaya. qaarna waxay noqon doonaan kuwo iyagu kugu dheggan oo ah waxa hoos kuu haya ee kuu diidan inaad dhaqaaqdo, inaad wax noqoto iyo inaad hore u socoto. markaad taasi ogaatid waxaad u baahan tahay inaad jartid caadooyinka iyo waxyaalaha hoos ku haya kuu diidan horumarka, aanad barbaarisid oo aad horumarisid kuwa ku kabaya ee ku gaadhsiinaya halkaad rabtid. inaad ogaataa caadooyinkaaga waa muhiim, waayo waxaa laga yaabaa waxa horumarka kuu diidaya inaad isla adigu samaynaysid, inaad adigu tahay cidda kuu diidan inaad wax noqoto. marka qodobka saddexaad waxa weeye inaad u fiirsatid oo aad u dhuuxdid waxyaalahaad maalin walba samaysid si aad u ogaatid kuwa go'aaminaya ee horsocodkaaga kabaya iyo kuwa hoos ku haya. qodobka afraad isaguna waxa weeye waxaad u baahan tahay inaad ogaatid baahida marka laga sheekaynayo sida caadiga waxaa la dhahaa baahidu waa hooyada wax soo saarka. haddii aanan jirin haddii aan wax loo baahnayn ma jirto sabab loogu baahdo in wax la soo saaro. marka baahida laga sheekaynayo haddii aan soo qaato mid ka mid ah aragtiyaha ugu caansan ee culamaa nafsi in la oran jiray Abraham Maslow aragtidu leeyahay. aragtidaas waxay baahida aadamaha u samaysay dabaqado iyo heerar kala duwan. qofkuna marka uu dabaqada hoose kasoo gudbo uu ta dhexe usoo gudbi karaa, ta ka sareysta usii gudbi karaa, saas u socon karaa. markaa tan ugu hooseysa ee asaasiga waxaa la dhahdaa physiological need, waa baahida asaasiga, qofku inuu biyo helo, inuu cunto helo iyo wixii la mid oo dhan. guri iyo biyo iyo cunto wixii la mid inuu helo ayuu qofku aadama marka ugu horeysa u baahan yahay. markuu qofku intaa helo wuxuu raadinayaa deegaan amniya, meel uu nidaam, sharci, kala dambeyn uu ku dareemayo oo aanu naftiisa iyo lafiisa u baqayn buu marka labaadna raadinaya. halka marka saddexaad ama baahida saddexaadna ay tahay lahaansho iyo jacayl uu qofku raadinayo. wuxuu raadinayaa inuu family yeesho, saaxiibo inta badan uu ku talan yahay oo intimate relationship uu dhex maro, inuu yeesho lamaane, inuu yeesho hanti. lahaansho iyo jacayl buu qofku dabaqada markuu kaalintaas u halgamaya markuu degaan amni helo. markuu taas helana wuxuu haddana raadinayaa ixtiraam iyo in la sharfo oo la maamuuso oo kor loo eego. marka halkaa la joogo is-sharfidda iyo ixtiraamka labay u kala baxaysa. qofku inuu isagu isqiro, ismahadiyo, ismaamuuso oo uu isku arko qof macnale inuu yahay, iyo in bulshadu ay qirto oo qofku heer gaadhay oo wax qabtay noqdo oo la mahadiyo oo la maamuuso. markuu qofku taa ka soo gudbana wuxuu gaadhayaa heer self actualization, qof xaqiijiyey ku dhawaad inuu isticmaalo kartidiisii intii ugu badnayd isticmaalay. marka waxaad u baahan tahay inaad ogaato baahida ku wadaa. adigu waxaad raadinaysaa deegaan amni iyo meelaad lafahaaga ugu cabsin oo nidaam, sharci iyo kadmi ku dareentid. ma waxaad raadinaysaa hanti iyo saaxiibo iyo lamaane oo loo fi jacayl kamid raadinaysaa. ma waxaad raadinaysaa sharfid iyo maamuus. mar walba waa inaad garanayso baahida ku wada iyo wax dhaqaajiya kuwa. waayo waxaynu hore u sheegnay in baahidu ay tahay wax aadamaha wada ee dhaqaajiya. marka ugu dambeysa ama qodobka shanaad ee ugu dambeeya waxay inaad ogaato emotionska, waa qiirada, niyad kaca qofka. emotionsku waa uun farxadda, murugada, yaabka, waxa la mid oo dhan. kuwani qaabkay u saameynayaan natiijooyinkaad helaysid emotionskaaga. markaad og tahay qiirooyinkaaga iyo waxa sababa
waxaad awood u yeelanaysaa inaad maamuli kartid qaabka ay farxaddaada u saameynayso awooddaada howlfulinta iyo qaabka ay u xidhiidhaan sidaad u fikirto iyo fikirkaaga ficilkaaga xiriirka ka dhaxaynaya waxaad fahmaysaa qaabka emotionskaagu ay uga qayb qaadanayaan ama u saameynayaan ha kordhiyeen ama ha yareeyeenbe natiijooyinka aad helaysid iyo guud ahaan adduunyada dibaddaada siduu qiirooyinkaagu ay u saameynayaan dadka kuga hareeraysan adiga kartidaada iyo waxqabadkaaga iyo hor socodkaagaba shantan qodob marka aad si fiican u fahamtid waxaa ka dhex abuurmaya sawirkaad adigu iska qaadanaysid oo ah mawduuc aynu kaga hadli doono qaybta kale qaybtan xigta waxaan kusoo koobayaa maanta barnaamijkeena isbaro issharaf oo is-ixtiraam isku kalsoono haddana waxaan tusaynaa applicationkan muuqaalka xaggiisa hore idinku sheegnay waxaad gali play storeka mobilekaaga waxaad ku qoraysaa who am I personality test kabacdi applications badan baa kusoo bixi waxaad ka dooran kaasaad soo dejin markaad soo dejid uu gudaha mobilekaaga kusoo galo waad furaysaa markaad furtid waxaad dooranaysaa take big 5 test ayaad dooran markaad doorato waxaa kusoo baxaya qoraalka halkaa ku qoran markaad qoraalka akhridid haddii uu qoraalkaasi waxa adiga ku sifaynaya yahay waxaad dooranaysaa 4 iyo 5 hadba siday u kala mudan yihiin haddii uu waxaas wax adiga aan kula xidhiidhin yahayna waxaad dooranaysaa 1 iyo 2 hadba siday u kala mudan yihiin saddexna waa markuu waxaas dhexdhexaad yahay tusaale ahaan haddii qormada halkaa ku qorno wax adiga si xaqiiqa ah oo si dhaba kuu qeexaya oo ku sifaynayu yahay waxaad dooranaysaa 5 haddii waxa adiga kula xidhiidhan yahayna waxaad dooranaysaa 4 haddii waxaas wax gebi ahaanba adiga aan kula xidhiidhinu yahay hal baad dooranaysaa haddii uu wax aan kula xidhiidhinu yahayna 2 haddii uu dhexdhexaad yahay 3 baad dooranaysaa marka su'aaluhu waa xoogaa waad wadaysaa waxaad samaynaysaa ilaa intaad ka dhamaystirayso waad wadi markaad dhamaysidna waxa ku soo baxaya sidan waxaad samaynaysaa tusaale ahaan imika halkaas ugu koraysa iidaas waxay taagan tahay extraversion oo 70% weeye openness 70% agreeableness oo 50 consensuousness 70 iyo neuroticism 30 qoraaladan oo dhani waa kuwo qofka sifaynaya qofka sharxaya waxa kaloo muhiima qofka noocaas oo kale ah sifaadkiisu ay sidaa yihiin shaqooyinka ku habboon oo wax muhiim in qof walba ogaada ayaa iyadana waxay yihiin halkan ugu hooseysa tusaale ahaan counseling teaching human resource nursing administration and management waa shaqooyinka qofka sifaadka noocan oo kale leh ku soo baxaya haddii uu galo uu ka keeni karo guul caqiibo leh ama uu horumar la taaban karo ka samayn karo ودعت كأسي هاهنا وتركت آلامي أنا ووقعت